بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله تعالى halkan waxaynu sharxi doonaa suuratu leyl intii inoo hadhay iyo dhamaystirka aayadihii inoo hadhay suuratu leyl suuratu leyl waxaan qaybtii hore soo dhaafnay qaybta dambena waxay ku bilaabmaysaa pageka qaybtiisa labaad laam madb alif laa marka laam madb alif in badan ma ku sharxay waa laam iyo alif israacsan laam iyo alif israacsan had iyo jeer alifada markaad soo dhiganaysa wadigii soo dhigtay laam alif wadigii soo dhigtay laam alif marka had iyo jeer laguma dhawaaqi karo alifka maxaa yeelay alifku sukuun buu saaran yahay sukuunta lama muujiyey laakiin sukuun baa saaran alifka marka dhawaaqa hadduu quraf ku dhahdo alif baan ku dhawaaqaya horta caqligal maaha maxaa yeelay alifka sukuun baa yeelay wax sukuun saaranna carabta kuma dhawaaqdo laguma dhawaaqi karo sababta keentay markaa in aliftii laga horreysiiyo laam oo fadxo la siiyo laamtii wataasaa keentay oo la yidhahdo laam alif marka alifada deganaysa soma soo dhigan laam alif ama alifada qaar inay ku sawiran tahay laam alif sooma arkin waxaa ku barayaa markaa alifkani laguma dhawaaqi karo hadduu qofku ku yidhahdo alif ku dhawaaqa waxaa odhanaysaa un xaraka ka horreysii laam xaraka ka horreysii alifni ku dhawaaq laa ama qaaf baad odhan kartaa dee qoo dhibaato maaha dada xarafka doonto ka horreysiiso halkan laamun baa laga horreysiiyey imika marka imika sababta awgeediina siisay in la siiyo oo la yidhaahdo laa saasaa keentay laa halkaa suuraddu aayaddu inoogu bilaabmayso laa waa laam alif laam iyo alif laa xarakateenna waa la jiidayaa laa ya fadxa saad sukuun yas saadkana waa isticlaa xuruuftii waaweyneed laa halkani iyo halkaasi waa isku mid marka halkan iminka waxaad aragtay waxay la mid tahay halka dambe waxaa inoo yaala laam hase yeeshee xaraf caynkaasaa la siiyey laynka caynkaasi iyo kani waa isku mid labaduba waa alif kani waxa la yhahda alif sagiira markaa sakiirahani ma yara laakiin xuruufta marka la qorayo luqa alcarabiya marka la qorayo qur-aanka la qorayo musxafka maadaamuu musxafku yahay dee waxaan la bedeli karayn oo rasuulka alayh isalaatu wasalaam markuu joogay la qoray hortiisana lagu qoray sidii loo qoray asxaabta u qortay ee rasuulku yiri u qora maadaama rasuulku uu ahaa yani qof aan waxba qorin waxna akriyin mucjizo gooniya ay tahay oo rasuulku uu iska sitay alayh isalaatu wasalaam aliftaasi halkaa ku qoran saa imika ugu dhex jirta halkaasi laa yas laa halkaa waxaa ku jirta laa marka yas laa halkii lisaa looga qori lahaa imika halkaa aynu qornay oo kale ayuunbaa laamkii la qoray alifna dushaa laga saaray marka laadaasi iyo kaasi waa isku mid labaduba waa laa inta laa u akrido nagu akri laa haadan alifaa ku xigta hase yeeshee haddana waxaa kasii dambeeya madkii aanu soo dhiganay oo hamsahan kana keenaya madka laa yaslaahaa ayahay asalkeedii haa laakiin iminka dabiicigii aynu jeedi jirnay ma garanaysa wixii aynu jeedi jirnay aynu laba ka dhigi jirnay waa laga dheereynaya maxaa yeelay waxaa ka dambeeya waxyaabihii keeni jiray sababta madka keentay in badan baa sharaxnay haddaan dul maro aan ku soo celiyo waxaan sababka madka waxa keena laba sababood almad waxaa dhaliya laba sababood sababta koowaad waa maxay waa hamza sababta labaadna waa maxay waa sukuun marka sukuuntan weli maan sharxin laakiin in badan baan sheegay in hamzahaasi la iska fiirsado oo marka marka la eego la yidhaahdo laa yas laa haa laa halkaa alifaa ku xigta laa haa halkan waxaa ku jira aan soo qaatay iminka intaasi haa oo waxaa loo akriyayaa haa laakiin calaamad ba halkaa laga saaray saas oo kale ah calaamadiina waxaa kasoo laa yaslaha ilal waxaa ka dambeeya hamzihiina waa kan aan ku sheegay sababta keenaya markaas hamsahan awgeed ayaa madkii halkaa ku jiray labadan dhexooda loo dheereysiiyey oo loo yidhi waa in la jiidaa 4 xarakadood halkaad ka akri lahayd fatxa 4 jeer oo ad odhanaysaa laa yaslahaa ma fahantay imika
لا يصلاها إلا مكان اسكو دفو لام كا كو دفو لبدا إنك بود إلا يشين سكون سارين هي قا مكا ألف بالكا كو حكتا قا لا يصلاها إلا الأشقى الذي ماذا ما شرحي ذي ما بالياء الذي كذب وتولى ألف جيد وتولى وسيو جيم فتحة وسيجا جيم فتحة وسيجا نون شدن يا فتحة وسيجنب ضمة بو ها مد بالألف وسيجنبها أي هذا أرسك هذي لكن هل كان هذا لام كاكل فشيخ هل وسيجنبها قا ألف همزة يتين تاء سكون صارنتها قا محل هو حرف استعلاء قافك مركو ألف تكدم بينه وسي يا قا سكان نقني أوجد الذي يمكن الذي هل كان ذن نجم صحيح تن عفوا الذي وألف ما ألف همزة الوصل يا اللام يا الذال إيو يا مكان ذلك السكون بصارن هل كاس اللام كوحة صارن شد إيو فتحة هسي شيء هل كان ما هي مكان همزة القطع أو همزه أنه آخره جرنية أقلورين جرنية معها لكن ما دام كل تلمدي يكون بلاب ميسو تلمدي ما دام يكون بلاب ميسو همزة هاسي وحلو رجيا همزة القطع أبلا قد جيا ده قيسي على قول واقعية وحلو رنيا وإن كسرنا همزة هين هدنا أبلا قد جيا ما دام يكون بلاب ميودي الذي شد كنسي الذي مكان أبلا لكن همزه وحلو قد جيا أوفرسو معناه لكن ما دام يكون بلاب ما تكلم دي ساس أخذ بالآخرية الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى أكن يكن واسكن ما شرحي مكا الذي يؤتي هل كانوا فيرسو أكادو فيرساتو تبدأ بكو قدما إما كان كمان نوجي علي يا وحكو حجي واو يا همزة واو وحصار يا وحصار ضمة لكن همزها وحصار سكون هذا بعد دام يمكن كل شرحان كل هذا شيء خوي سكيلالي دام كل هذا همزها همزة وكاسمة أما بس هو ذكر كرت همزة كلي جدونها همزة همزة ألف راعين كركتا ولا سكمت كوس لو غيون أضو صار سداس يادو سدا وآخرية لبض واسكمدون همزة المهموزة همزه هذا همزه لصاري همزه لصاري ألف تمدوش كنا قنصة مكان مكان دركتو لبض عسيا دركتو واو يا همزة يا همزة يا ألف يا همزة شيخو صدح داسي صدح ذو waxay ka dhigan tahay adigoo akhriyay un hamze inta ma ku dhacday marka ha oran in halkan waaw baa ku jira marka waadaama uu akhriyay ha oran you a sida dadka qaar u akhriyaan ma garanaysan u akhriyaba laakiin imika halkaasi hamzahaas iyo ogaasi waa halkan inoogu jiro oo waxa laga dhigayaa un hamza loo bedelayaa hamza quraata waa adigoo u akhriyay sidan يا همزة ساسو آخرية كله سكون صارن لكن ما دام يمكن سلام قرأ سنة ساس لو قرأ يؤمنو الذي ممكن يؤتي به دين واسلام بدون يؤتي
ما له مد بالواو يتزكى وما لأحد halkan iminka waxa laga dhigayaa waxaa la siinayaa din maxaa yeelay oo din loo yidhi din liaxadin halkan waxaa loo yidhi iminka halkan waxa saaran haddaad aragto tanwiin sheekhow tanwiin fadxatayn tanwiin kasra iyo tanwiin damatayn waxa ka horeeya hadduu yahay alhamzatu walhaa alcaynu walxaa alghaynu walkhaa haddaad aragto lixdaa xaraf hadduu ka dambeeyo waxaa la yidhaahdaa alidhaar idhaarkuna waa muujin markaa muuji umay ka dhigantay muuji waxaan uga jeegin axadin tanwiintii waa taasi axadin tanwiintii waxaa ka dambeeya caynkuna waa ka halkan inoogu jira dee xuruuftii idhaarka marka halkaa tanwiinta halkaa ku jirtaa muuji waxaa tidhahdaa axadin aqunaynin muuji bas khalaas wamaa liaxadin cindahu min nicmatin nuun iyo waxaa iska daba dhacay nuun mid qurun ka soo qaad min nicmatin iminka tanwiin baa ku xigta halkaa waxaa ka dambeeya taadaasi waxaa la yidhahdaa xuruuf lidqaam baa la yidhahdaa xuruuf lidqaam haddaan inaga masaxa halkan aan kuu sheego xuruuf idqaamka xuruuftiisana ise wuxuu noqonaya 6 xaraf xuruufta idqaamka waa 6 xaraf 6da xaraf yaa sheegaya intaanan qorin 6da xaraf ee xuruufta idqaamku waxay noqonayaan allahuma salli calaa maxamed 6da xaraf ee xuruufta idqaamku haddaad aragto tanwiintii ama nuun reeban oo labadooda waxaa ka dambeeya ay yihiin yaa iyo raa iyo miim iyo laam iyo nuun iyo nuun iyo waaw waa imse waa 2 iyo 2 iyo 2 waa 6 soo maaha 6daa xaraf haddaad aragto waxaa ka dambeeya iyo 6daa xaraf waxaa ka dambeeya waxaa la yidhahdaa alidqaam marka idqaamkuna waxay ka dhigan tahay adigoo shaygii dhex geliyey isku dhex geliyey isku dhex saa iskugu dhex aasay oo isku dhex geliyey oon la arkay ninkii kale marka iminka xuruufteena halkan waxaa inoogu jira ta'dii cafwan ta maakani waa waxa weeyaan ikhfaa marka halkan ta inooguma jirto marka laakiin kan idqaam wuu noqonayaa kaa iska daa hadda iminkaad eegto markaa wixii ka dambeeya xarafka ta'da hadduu yahay waxaa la yidhahdaa isaga alikhfaa alikhfaagana waa 15 xaraf laakiin ta'dan imika u fiirso ta'da halkaa inoo taalla haddii ka damba dhacdo nuun iyo tanwiin waxaa la yidhahdaa alikhfaa ikhfaagana waxa weeyaan 2 shay oo laysku dhex asturay oo aan lana qarin lana muujin laysku dhex asturay nicmatin tujzaa ilab ba'da ku dhufo kan iyo kanba ka bood ilabti غاء imika waxaan u weyneeyey waa xarf weyn oo iscilaaya غاء wajhi ilabti غاء wajhi rabbihi bay ahayd arsalkeedii laakiin hada iminka laamka ku dhufo rabbihi الأعlى walasawfa yardaa ilahay nagu anfaco in sha allahu tacaala wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakatu